soo dhawaada qoftan inta imaata xafiiska ninka ay u shaqeynaysay waxay bilaabaysaa inay dharka iska jeexjeexdo iyadoo qaylinayso iyada oo ku qaylinaysa iga soo gaaro iyo waxyaabo kale oo lamid ayaa waxa imaanaya gabar kale oo shaqaala gabadhii imaatay waxay ku dhehaysaa ninkan wuxuu isku dayay inuu wax qaldan igu sameeyo marka orod iga soo wac qof iyo caawiyo markii ay qayladii joojisay ayuu intuu u imaado wuxuu ku dhahaa maxaad ka wadaa qorshahan aa wadatana muxuu noo ahay iyaduna waxay taagan tahay qorshihiga waa ogaanaysaa ee wax yarsu kadib intay soo qaadato waxaana indhaha ugu shubay xoogaa kadib waxaa meeshii soo gaaraya ninkii shirkadan iska lahay kadib gabadhaana wuxuu weydiinaa maxaa meeshan ka dhacay waxay ku dhehaysaa way fiican tahay haddii aad meeshan timaaday ee midkan iga badbaadi xoogaa ka hor wax walba way deganaayeen aniga iyo midkaanoo ka wada hadlayno waxyaabo shaqada ku saabsan ayuu hal mar wuxuu bilaaba aniga inuu ifoodeeyo kadib midkaana intuu soo boodo wuxuu dhaha qoftan waxay sheegaysa waa been wax walba ee sheegtana way soo alifatay haddii aadan aniga ii aaminayna waxaa jiro cc camera marka waa inaad kaamirada fiirisaa si aa wax walba u kala ogaato midkii booska ah wuxuu isku dayaa inuu taleefankan ka fiiriyo kaamirada waxay duubtay laakiin wax oo dhan muku arkaayo haddana intuu kor fiiriyo wuxuu arkaa in kaamiradii waxa duubaysay oo dhan xanjo lagu dhejiyey kadib kuwaana wuxuu weydiinaa sidaan yaa sameeyey midii qaylinaysa intay soo booday waxay dhehaysaa yaa kaloo waxaan sameeyey ninkan wuxuu waxaan u sameeyey inuu qariyo wixii uu sameynayay ugu dambayn midkii booska ah go'aan uu qaadanaa midkaana wuxuu ku dhahaa alaabtaada oo dhan xafiiskan iska aruurso kadib iska bax adiga camal boos uma haynee xoogaa kadib midkii la buriyey isagoo xafiiskii ka aruursanaya alaabtiisa ayuu wuxuu arkaa inay xafiiska kula jirto gabadhii shaqaalaheed kadib wuxuu weydiinaa adiga kama cabsanaysid miyaa nin wax qaldan soo sameeyey inaa xafiis kula jirto iyaduna waxay ugu jawaabaysaa aniga waxaan ogahay adiga inaad tahay qofka ugu wanaagsan shirkadan aniga waan ogahay waxa lagugu soo eediyey inay been yihiin aadan waxaa samay karin isaguna wuxuu ku dhahaa nasiib darro adigu waxaa tahay qofka keliya oo aaminsan inaanan waxaa samay karin isla markiina kuwaan waxaa u imaanaya midii qaylinaysay oo wadato kartoon weyn kadib midkaana wuxuu weydiinaa dhibaato kale inaad samaysamaa meeshan u timaaday waxay u sheegaysaa inaysan waxaas u imaanin laakiin xafiiskan u timid inay fiirfiiriso ayna alaabteeda dhigato midkaana waxay u sheegaysaa inay nasiib wacan u rajaynayso uuna raasado shaqo cusub markii ay baxday xafiiskii waxaa ku soo haray midkii la buriyey iyo gabadhii shaqaalaheed kadib wuxuu ku dhahaa hal wax ma ii samay kartaa midaan aniga aqaanee maalmo kadib xafiiskii ninka laga buriyey waxaa lagu wareejiyey midii qaylinaysay iyaduna gabadha shaqaalaha si wanaagsan ulama dhaqanta ee waxay erabtay ka samaysataa midda shaqaalaha waxay fulinaysaa qorshihii oo midkii u soo sheegay oo ahaa si qarsoodiya inay u wacdo midkii booska ahay markii ay wacday ninkii shirkadan iska lahay gabadhii intay kusoo jeestay waxay ku dhehaysaa su'aal maku weydiiyaa waxay weydiinaya sidee ninkaas waxaas kuugu sameeyey isaga wuxuu u egyahay nin wanaagsane waxay ugu jawaabaysaa qorshahaas wuxuu ahay qorsho ah ayaan dhan ka soo shaqaynayey ninkaasna wax qaldan muusan igu samayn ee keliya waxaan rabay inaan kursigiisa ka qaato iyadoo hadalkeeda wadato ayaa midkii booska ah intuu soo hadlo wuxuu dhaha waan ogaay inaad sidaas samaysay haddana qofka soo laabanaya waa qofkii aan hore u buriyey qofka baxayana qof kale maahane waa adiga waxaa imaanaya marka midkii la buriyey midaana wuxuu ku dhaha waad maqasho maaho ninka booska hadalkiisa alaabtaada oo dhan aruurso kadib adigoo faraxsan xafiiskayga iska bax muuqaalkanna intaanu ka ekaay ee ugu dambayn hadda halkaas soo gaarta leegnoo saar soo dhawaada ninkan maalin wuxuu go'aan ku gaaray inuu xaaskiisa iibiyo intuu kartoonkan ay lacagta ku qoran tahay qoorta u soo geliyo ayaa waxaa u imaanaya ninkan kale iyo xaaskiisa ninkan kale midkan wuxuu ku dhahaa lacag ma haysti laakiin ka waran haddii aan xaaskayga iyo xaaskaaga aan kala bedelano midkan intuu yaabo wuxuu bilaabaa inuu ninkan xaaskiisa uu fiiriyo xoogaa dheer uu fikirayeen ugu dambayn wuu ogolaanaa inay labadooda xaas kala bedeshaan markii ay kala bedesheen midkaana ninkii wuxuu weydiinaa qoftan maxaa ku nacday isaguna wuxuu ugu jawaabaa qoftan wax kale ma ku nicin ee gurigay iska joogtaa jaagadan weynna way iska wadataa laakiin qoftan markii ay guriga joogto si fiican ay u kala hagaajisaa dhinaca guriga way ku fiican tahay hana ka welwelin cunto waa karina haddii ay ku dhahdo kal iyo laaba u karine kanna markiisa waaye wuxuu dhahaa horta qoftan dhibaato ma laha way qurxoon tahay sida aan anigu u malaynayana qoftan markii aad guursata kadib way kuu kala kacee saaxiibadana way kaa maseeri doonaan kadib gabadhaana intay soo hadashay kuwan waxay weydiinay sida alaabtii maxaa ay noola dhaqmaysiin midkaana wuxuu ugu jawaabaa aniga wax walba dib kaaga sharixi doona hadda ka bilaabatan aniga waxaan ahay ninkaaga ugu dambayn labadooduna waxay kala aadayaan xaafadahooda maalintii labaad midkan intuu gurigiisa kusoo laabto wuxuu arkaa qoftan oo ay ka qasnayn oo alaabtan iska marmarsanayso iyo gurigiioo isku dhex daadsan wuxuu fiirinaa lacag oo meel gashtay wuuna ka weynaa kadib intuu midaan u imaado wuxuu weydiinaa tuug miyaa gurigeena soo galay iyaduna waxay ugu jawaabaysaa maya tuug ma soo gelin maxaa sidaas ugu fikirtay wuxuu u sheegaa in loo maleeyo meeshaan oo dhan inay dabeel ka kacday lacagtiisina ay maqan tahay waxay ku dheheen marka waxaad u wacdaa qof hagaajiya gurigan lacagtana ma maqna ee aniga qaatay waxaana kusoo gatay dharkan soo aad uma qurxoona kadib midkan intuu qoftan ku xanaaqo wuxuu ku dhahaa adiga lacagta ma iska qaaday maxaa ii weydiisa weysay qoftaanna maba ka qasna midkan waxay ku dheheen haddii aad u baahan tahay xaaskaaga inay qurxaanaato waa inaad maal gashataa haddana dharkan meeshaan yaalla aa soo gatay markasoo aad ma u qurxoona midkan isaga oo madaxa la xanuunayo qoftan waalan uu soo bedeshay ayuu mar kale wuxuu weydiinaa caawa maxaa noo kalisay cuntaa iyadana tartiibkeeda intay ku qosashay waxay ku dhehaysaa haddii aad cunto u baahan tahay waa dalba kartaa haddii kale waxaad samayn kartaa
xataa inaad maqaayad aado. midkan isagoo xanaaqsan oo go'aan qaadanaa qoftaana wuxuu u sheegaa inay xaaskiisii horeed iyada ka fiicneed. waxay ku dhehaysaa marka haddii ay xaaskaagii hore kuu wanaagsanayd maxaad u iibisay oo suuqa u geysay. isaguna xasuusow galaa wuxuu soo xasuusanaa markii ay xaaskiisa cunnada u keeni jirtay isaga oo shaqadiisa u socdo. isaguna oo ku dhihi jiray meeqa jeera kuu sheega aniga cunno ma u baahni markii aan shaqada u socdo. iyo markii uu ku dhihi jiray adiga qof kuu baahan ma laha haddii xataa suuqa lagu geeyo qof frii kugu qaadanaya ma jiro. iyaduna maysan iska waalin markii uu hadalkaas ku dhahay kartoonay intay soo qaadatay waxay ku dhahday aan tijaabino. xasuustii intuu ka soo laabto wuxuu ogaanaa inuu wax qaldan sameeyey. qoftii la joogtana wuxuu ku dhahaa hadeertaan xaaskiygii waa inaad soo ceshtaa ee waxaad ii sheegtaa meesha uu ninkaaga joogo. labadooda oo qolkii ku jira intuu u soo galow ninkan wuxuu ku dhahaa heshiiska waa ka baxay qoftaana xaaskayga waayo waa inay soo celisaa. midkaana wuxuu taagan yahay qoftii hadday kugu xumaatay qoftaan aniga ii wanaagsan tahay. kadib midkan xaaskiisoo la hadlaa wuxuu ku dhahaa iga raalli noqo adiga qaladaan kaa galay. adiga waxaad ahayd qof wanaagsan aniga wanaaggaas waa arki waaye waana kuu mahadceli waaye. haddana aniga waxaan soo ogaaday inaad adigu tahay xaaska ugu wanaagsan adduunka. iyaduna isaga waxay ku dhehaysaa horta ninkan iska baro waxaan nahnay saaxiibo qadiimiya. anigana isaga waxaan ugu wacday inaad adiga ogaato qaladkaaga. aniga hadda kadib shaqadaydii horaan dib ugu laabanaa si aan u madax bannaanaado. isagana ugu dambayn qoftan wuxuu u sheegaa inay wax walba u dhacayaan sidii ay iyadu rabto. labadooduna way heshiiyeen. muuqaalkuna intaasoo ku ekaayo leegnoo saar. soo dhowaada gabadhan waalidiinteeda waxay ku kari waayeen taleefankan 24 saac isticmaalisid iska daay. kadib qorshaha ku soo dhacaya maalintii ay dhalashadeeda aheed waxay u soo gadayaan taleefan nicla. kadib waxay ku dhehaysaa kaftanka inta ay ka deyseen iPhone-keygii laakiin aabeed wuxuu u sheegaa inaysan midaan kaftan ahayn. hooyadeedna waxay ku dhahday maadooyin badanaa dhacday taleefanka dartiisa. waxay taagan tahay sababtaa u dhacay wax kale ma ahan ee macallimiinta dhana inay cab taleefanka waxaas kama dambeeyo. kadib hooyadeeda waxay soo qabanaysaa taleefankii ay hadda isticmaalaysay waxay ku ridaysaa marka sanduuqan. waxayna u sheegay inay waqti aad u badan taleefankan ay ku dhumisay ayna ilowdo wixii muhiimka u ahaay. sidaas darteed taleefankaaga aniga haynayo meeshaanan ku ridaa ilaa aad ka baasiis. aabaheedna wuxuu ku dhahaa hadda taleefan waa haysataa kaas waa si isticmaali kartaa niclaha. intaasna wuxuu u raacinaa weli waxaa noo dhiman. beri wixii ka dambeeya macallina guriga kugu imaanayo si uu cashirka kugu soo celiyo. kadib iyadoo cusbada ku kakacsantahay meeshii isaga tegay. subaxdii markii iskuulka imaatay saaxiibadeeda waxay ku dhehaysaa fiideo kala kacsanaa kuusoo sheergareeya fiiri. markii ay isdhaahdo fiideoga fiiri waxay arkaysaa inay taleefan niclaa wadatay. waxay weydiinay taleefankaagii aawey. kadib waxay bilaabaysaa inay been u sheegtay iyadoo dhehayso youtube-ka waxaan ku arkay muuqaal dhahayo taleefanka in la badsado caafimaadka muu fiicno. sidaas darteeda taleefankayga gurigiiyaa uu soo tegey. xoogaa kadib waxaa galaaska imaanaya gabadhan kale oo isticmaalaysa taleefan niclaa. kadib gabadhii ay ku jejeysayaan waxay dhahayaan taleefankan wuxuu soo baxay 1800 iyo meelahaas iyadana ilaa hadda isticmaalaysa. galabtii markii la gaaray iyada oo gurigeeda iska joogta albaabka lagu soo gargaraaca. waxay arkay macallimadii ay waalidiinteedu ku dhahayeen gurigay kugu imaanay in ay tahay saaxiibadeed niclaha wadatay. xoogaa badan oo ay la sheekaysanaysa waxay u ogolaanay inay gudaha soo gasho. cashirkoodii ayay intay bilowdeen waxay weydiinayeen dagaalkii labaad adduunka goorma u dhammaaday. iyaduna waxay taagan tahay waxaas wax horey ahaayeen haddana wax naga gala ma laha waxaas waa la soo dhaafay anigana waxa maqlay inay wax waa hor ahaayeen. kadib saaxiibadeed waxay weydiinayeen ma ogdo inuu imtixaan kuu soo socdo oo aad geli rabtid waalidiintaadana waxay ii sheegeen inaan si fiican wax kuu baro. intay u soo dhowaatay waxay ku dhehaysaa waxaan ku siinaa lacag $50 markaas adiga wax ma i baraysid. waalidiinteeduna waxay u malaynayaan in aad wax i baraysid taas beddelkeeda waa sheekaysanaynaa. saaxiibadeed markay aragtay midaan inaysan rabin inay wax barato oo waalidiinteeda lacagta ka khasaarinaysa meeshii isaga tegay. subaxdii kale iskuulka dhexdeeda iyadoo taleefan iska dhegaysanaysa ayaa midaan iyo saaxiibadeed tilaafo u bixinayaan ayadana dhulka intay ku dhacdaa taleefankeeda ka jajaba. intay soo kacday waxay ku dhehaysaa maxaad samayseen taleefankaygii ay iga jabiseen iyadana iyo jabsana meeshii isaga tegay. laakiin midaan intay ka dib timaaday waxay ku dhehaysaa waxaan taleefan yar le waaye waalidiintaada weydiiso way ku gadayaan. intay soo jeesatay waxay u sheegaysaa inuu midkaan yahay taleefan ay hadiyad ugu keeneen waalidiinteedu kadib ay dhinteen. intaasna waxay u raacinayeen markii ay waalidiinteedu dhinteen waxaan bilaabay inaan dadka kale xaafadooda ugu tago si aan lacagta iskuulka u bixiyo. kadib midaan intay ka naxday waxay ku dhehaysaa sidaas hadday tahay xaafadana waa imaan kartaa si aad wax ii barto lacagtaadana u hesho. taleefankan hadda kaa jaban aniga ii dhiib aniga kuusoo samaynaye. maalin kale midaan iyadoo taleefan iPhone miiskan dushiisa ku diyaarinaysa waxa u imaanaya waalidiinteedoo naxsan. iyagoo yaabanay waxay weydiinayaan intaa baxday miyaa soo gadatay taleefan iPhone kadib markaa kaagii ka xariinay. iyaga oo ku qaylinaya ayaa waxaa lagu soo garaacay albaabka gurigooda iyadana way aadaysay ay u soo furto. markii ay albaabka furto waxaa ka soo galaya saaxiibadeed macallimadii. intay soo baxday taleefankii ay miiska dushiisa ku diyaarinaysay ku wareejinay. waxayna ku dhehaysaa taleefankaagii niclaha wixii kugu jiro dhan intaa kugu soo shubay haddana waa furi kartaa si aad u aragto. iyaduna markii ay taleefanka furto waxay arkaysaa inuu ugu jiro codkii ay mar walba dhegaysan jirtay. codkaas wuxuu ahay cod ay u duubeen waalidiinteedu markii ay taleefanka niclaha hadiyada ugu keenayeen. kadib intay soo baxaan waxay wada fadhiisanayaan meeshii midaan wax lagu bari lahaa. waalidiinteedu waxay arkayaan inay gabadheedu isbedeshay ana hadda samaynaysa wax wanaagsan.